taleefanka hadduu kaa halaabo ama uu kaa lumo ama lagaa xado ama wax kale ay ku yimaadaan alla kuguma keenee waxaa dhacda dhibaato kale oo taas ku hoos qarsan taas oo ah waxaad weysaa taleefon numbariska ku kaydsanaa taleefankaas. tusaale kale nambaro aad u fara badan oo saaxiibadaada ah ayaa taleefankaaga kugu kaydsanaayo, laakiin hadduu taleefankaaga halaabo ama uu kaa lumo iyagana way kaa lumayaan, sax? laakiin ma ogtahay in taleefon nambaradaasi aad ku kaydsan karto gmailkaaga? hadhoweytane taleefon kasta oo aad u bedelato ama aad aadaba aad dib u soo ceshan karto. muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa taleefon nambarada kugu jira taleefankaaga ama simikaarkaagaba inaad soo qaadato kadibna aad ku shubato gmailka. sidee loogu kaydiyaa? ila daawo muuqaalkan. waag saaxiibayaal, markii koobaad taleefanka ayaan soo qaadanaynaa, kadibna waag saaxiibayaal, taleefankaaga waxaad hubinaysaa inuu gmail kugu xiran yahay. dhowr meelood ayaa laga hubin karaa inuu taleefankaaga gmail ku xiran yahay iyo in kale. meesha koobaad Play Store-ka tag. haddii Play Store-ka uu kuu shaqeynayo qaybtaas korana uu kaaga muuqdo gmail, taleefankaaga gmail waa ku xiran yahay. haddii ku xirnayna waxaan ka codsanayaa inaad taleefankaaga gmail aad ku xirto. gmailkaasna waa inaad taqaanaa passwordkiisa. intaas kadib haddii aad hubto taleefankaaga inuu ku xiran yahay gmail, waxaan ku leeyahay raac wadadan si taleefon numbariskaaga u kaydsato. marka koobaad waxaan tegaynaa contacts markaan tagno waxa halkan ku jiro taleefon numberadena. taleefon numberadan meelo kala duwan ayay ku kala jiraan, balse waxaan rabnaa inaan ku shubno gmailkeena. si aan u shubno waxaan taabanayaa saddexda dhibcood ee geeska ka hoos ayaan u wadayaa, waxaan dooranayaa manage contacts. qaybtaas hoose ee manage contacts ayaan taabanayaa, kadibna move contacts ayaan dooranayaa. saddex ayaa laga rabaa inaan buuxiyo. marka koowaad waa inaan sheegaa daatada meesha aan ka soo qaadayo, yacni numbariska meesha aan ka soo qaadayo waa inaan sheegaa. tusaale waxa igu jiraan, haddaan sim2 doortane waa ay ku jiraan. sim2 contacts aad u fara badan ayaa ku jiro. haddii aan rabo daatada sim2 igu jirta inaan gediyo, sidaan ayaan u dooranayaa. waa 109 number. haddii aan rabo waa ka dhaafi karaa oo qaar ayaan ka qaadi karaa, kadibna dhan ayaan taabanayaa. hadda waxaan soo wada qaadanay numbariska aan doonaynay, waa inaan caddeynaa meesha aan ku shuban lahayn. 109 number ayaan wadanaa, waa inaan sheegnaa meesha aan ku shubi lahayn. tusaale kale waxaan doonayaa inaan ku shubo gmailkayga. gmailkan oo jeedin qaali jaamac ayaa ku qoran 887@gmail.com. waxaa iska leh hooyaday hooye macaan. kadibna move ayaan taabanayaa. isla markiiba numbariskayga waxaa lagu shuba isla gmailka. sidaas ayaana loogu keediyey. waa su'aale soo ma fiicnaan lahayn haddii taleefankaaga markuu kaa lumo qaabkee looga soo ceshtaa? soo taas ma fiicnaan lahayn? haddii jawaabtaadu haa tahay, qaybta commentiga igula soo wadaag. iyadana waad ku tusi doonaa qaabka markii gmailka loogu shubo loo soo celiyo. aan kugu daree isku soo wanaagsan saaxiibayaal, ku mahadsan daawashada muuqaalkan. waxaan isleeyahay adiga hadda muuqaalkan daawanaya aad ayuu ku anfacaysaa. waxaan ku leeyahay hadda keedso. aan ku weydiiyey ma jiraan saaxiibo as leedahay ciladan way ku dhici karaan? haddii haa tahay jawaabtaada qaybta faalada commentiga la wadaag, ama sidoo kale la wadaag saaxiibadaada adigoo sheekeynaya. ku mahadsan daawashada muuqaalkan, kuu rajeynayaa guul wacan.